wasiirka dhulka guriyeynta iyo qorshaha horumarinta magaalooyinka maamul goboleedkana Gaarisa mudane Maxamed Xuseen Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay waxqabadka wasaaraddiisa ugu talagashay degmooyinka dowlad goboleedkan Gaarisa. waqti badan waxaan ka soo shaqaynaynay hawlaha magaalada Gaarisa sidii aan wax uga qaban lahayn hawlaha nagu aadan wasaaradaha ku aadan faa'iidada u leh countiga departmentkan hadda aan wasiirka ka ahay waxaa jirtay manifestaga governaha arrimo badan oo ku yaalaan oo u baahan in loo qabto magaalada Gaarisa County oo priority ahaayeen amaba muhiim u ahaa magaalada Gaarisa County waxyaalaha waxaa ka mid ahaa in la hormariyo magaalooyinka horaan aan magaalooyin waaweyn aan ahayn townanka ama kasii hoosay ahaayeen markii uu fiiriyay governaha oo uu fiiriyay in magaaladan Gaarisa iyo annaga wasiirkaba aan isla fiirinay in magaalada Gaarisa County ay pressure badan saaran tahay dadkii iyo bulshadii countiga dhan isugu imaaday magaaladan si arrinta loo dhimo in loo hagaajiyo magaalooyinkoodii kale ee yaryaraa in loo hormariyo taana waxaa keenay inta devolution ka horeysay magaalooyinka countiga magaalooyinka degmooyinka kale ama sub counties-ka kale way dhisnaayeen magaalooyin shaqayni howlahooda wadaan dadka ku noolaayeen ay joogayeen waxaa dhacday markii in pastoralist ay u badan yihiin deegaankan Gaarisa County reer guuraagi marka waxay noqotay in ay u soo guuraan markii xoolihii ay ka dhamaadeen la isugu imaaday magaalada Gaarisa County taana waxay keentay dhibaatooyin fara badan isu keentay in dadkii isqabsi fara badan dhulkii uu qiimo weyn yeeshay magaalada Gaarisa la isku dagaalo taasi aan uga hortagno xal guud oo waara in la helo aanan yeelno in magaaladii Gaarisa County aan u yeelno degmooyinka kale aan hormarino si ay ugu dhawaadaan magaalada Gaarisa County si marka qiimo ay u yeelato marka programkii waxaan bilownay in townski magaalooyinka hore townka ahaa aan dhowr magaalo soo qaadano oo meel dhaxaad ku yaalaan kana bixi karaan inaan ka dhigno municipalities ama aan hormarino statuski ama levelka hore ay joogeen ku ka sarreeyo si ay dadkiina wax qabad iyo bulshadiiba waxtar u yeeshaan programka annaga marka waxaan ka bilownay markaan saa u soo galnay haddaan hay wasiirkii u qaabilsanaa arrintan waxaan ka bilownay governorhana uu ballan ku qaaday uu asagana uu manifestigii ay ku jirtay waxaan ka bilownay magaalada Masalani horaan waxay ahayd town bay ahayd marka go'aankii iyo manifestigii governaha waxaa ku jiray in dhowr magaalo oo town ahaa in laga dhigo municipality. wasiirka ayaa intaasi ku daray in haatan ay xooga saarayaan sidii degmooyinka kale maamul goboleedkan Gaarisa looga heli lahaa adeegyada aasaasiga ah ee ay shacabka u baahan yihiin. arrintaa waa arrinta keentay in arrimahan deegaamaynta aan soo bino in ay helaan dadka ama magaalooyinka in ay helaan adeegyada yaryarka ee aasaasiga ay u baahan yihiin hadda ay warsatay taana waa aan rabno in ay municipalities-ka oo dhan aan suubin doona in ay yeeshaan waxaa loo hagaajinayaa budgetyo oon u diyaarinay 2023-2024 municipalities-ka aan hadda hagaajinayno oo dhan boardka iyo municipality-gaba adeegyada ay u baahan yihiin meesha looga baahan yahay kudi waxaan isku dayaynaa in ay helaan sida ay ka mid yihiin waste management ama waxa loo aqaano wasaqda magaalada fire hadduu dab u dhaco oo dhibaatooyin ay imaadaan suuqyadii oo ayaga laftooda ayaga ay handle garaynayaan qurxintii magaalooyinkoodii storm water drainage ama meelihii biyaha ay marayeen magaalooyinka in laga hagaajiyo wakiinadii iyo howlihii magaalada ay u baahan yihiin waxaa kaloo ka mid ah in wadooyinka magaalada gudaheeda ah inay ayaga manage garayaan sida ku qoran ee loogu ogolaaday ee charterda ku qoran ee loo ogolaaday adeegyada oo dhan municipalities-ka waxaa loo hagaajinaya waa in ay meeshooda ku helaan aysan u imaanin Gaaris aysan u soo safrin uu dhibku u yaraado sida oo kale municipalities-kan cusub ee hadda bilownay ee Masalani ay shalay ka mid ahayd la mariyay kuwa kalena ay ku soo xigaan waxay keenay shaqo abuur fara badan ay u keenay meesha ayada oo dadka meeshaas degan areas degan ay u keenay qaybaha dhan dhowr ilaa 14 function waaye hadda
hadda masalaani oo kale مثال ka soo qaado kuntii shaqaalihii qaban lahaa meesha ay ka wada imaanayaan dhalinyaradii wax baratay youth shaqaalaanta ahaa iyo dhamaan dadkii khibradda ahaa ee ka shaqeyn lahaa meesha ayagana shaqo abuur fara badan baa ka imaanaysa. ugu dambeyntiina wasiir xuseen ayaa ka hadlay xaaladda xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya in loo baahan yahay sidii loo furi lahaa taasoo uu sheegay in shacabka ay si weyn ugu baahan yihiin arrintaasi. xuduudka furitaankiisa aad baa looga hadlay shacabka aad bay uga hadleen madaxda aad bay uga hadleen intii aanan imaanin ka horna waxaan u malaynay akhbaaraadka waddanka ay ku qornaayeen in la ogolaaday in la furo xuduudada area regionka sida Kiunga Liboi Mandera wasiirkeena difaaca oo shalay nala joogay wuxuu akhbaar bixiyay ama uu jeediyay in xuduudadan kale ee Huluuqo iyo xuduudkan Huluuqo in custom iyo immigration la geyn doono wajeero kale laba meel ayagana la geyn doono laakiin xuduudada kale in la furaayo oo go'aankii dawladda ay qaadatay wasiirka uu ka dhawaajiyay marka taana waxay faa'iido u tahay isu socodkii iyo businesskii regionka oo dhan iyo waddanka oo wax badan soo gelinay.